كان واقم انت تقانا تقان قم بالي هذا حرق بالغ سمي كان واسابكي واقم باسابكي سي قم باس صبا قال له شباسك صبا قال له شبي جري ولي اسمع الله باي وحي لو شبا حرق bay ka suubin jireen waa qumbe hooyadan oo lagu magacaabo Sahra Sheekh Xuseen isla markaasina ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay hooygeeda ku ururinaysay muddo 28 sanadood agabka hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida oo isugu jira kuwa hore oo si dabar go'aya iyo kuwa ilaa hadda laga isticmaalo deegaanada Soomaalida hooyo Sahra waxay sheegtay in iyadu ay lacag ku bixiso alaabaha hidaha iyo dhaqanka kana iibsada cidda u keenta hooyo waxaa jira ilaahay umadiisa cid waliba shaqay leedahay amal bay leedahay ay u jarmaado waxaa jooga dad alaabtaas inay ka biix mushtaraan ku shaqaystaa jooga dadkaas ku shaqaysta baan u adeegsaday markaad u adeegsato aad keento oo ka iibiso ayaguna himad bay sii helayaan markaas meel walba gelayaan guri walba gelayaan xas walba gelayaan baadiye tagayaan markaasay soo aruuriyaan waa ka iibiyaan waxaan u waxeeyay markii aan arkay hidiya dhaqankii suugaantii af Soomaaligii wixii aanu lahaan jirnay oo sii gurahaya oo sii dhamaanaya markaa arkay waxaan iri kaalintee baad ka geli kartaa waa gurnay kaalintee ka geli kartaa markaasaan waxaan ogaaday tii anigu aan hidaha u lahaa waa alaabtaan hidiya dhaqanka yaan awalba jeclaa alaabtii inaan aruuriyo yaan isku dayay waxaan hadda igu khasbay waayaan dambe wixii oo dhan oo sii socdo oo dhamaanaya arkay inaan caruurta adinku aad ka mid tihiin inaan idin xafido oo idin celiyo hidiin iyo dhaqankiin dhalinyarada Soomaalida ah ay hooyo Sahra waxay kula dardaarantay inay hidaha iyo dhaqankooda ku adkaadaan bartaana waxaanay hadda qorsheynaysaa inay dhawaan soo bandhigto buug ay ku sawiran yihiin dhammaan agabka goobta yaala iyo mid kasta wixii uu qaban jiray kaasoo in muddo ah ay ku hawlanayd kataalooga weyn oo qurux badan inaan ka sameeyaan rabaa kataalooga way waxa dhalinyarada anfacaya hadda waa la keenayaa mar dhow kataaloogiyo oo aan soo suubiyo insha Allah haddaydnaan dhaqankiina adkaysan ee aad dadka aad la joogtaan aad ku milantaan aad sidooda u fakartaan sidooda u labisataan sidooda u dhaqantaan waxaa tihiin dad qaawan oo meelay ka yimaadeen aan la aqoonin cishada dhaqankiina hidiina ku faana waxaad ku faantaan baad ma qabtaan ayagii baad ka mid tihiin ummadda alla nooleydeen ayagii baad ka mid tihiin Hadiya Cabdiraxmaan Jaamac oo kamid ah gabdhaha ay dhashay hooyo Sahra Sheekh Xuseen ayaa waxay sheegtay in tan iyo yaraanteedii ay arki jirtay hooyadeed oo ururinaysa agabkani iyada qudheeduna ay ka baratay agabka hidaha iyo dhaqanka ah oo qaarkood aanay waxaan ku soo aniga shakhsiyan aan ku soo barbaaray intii aqligayga aan lahaa waxaan xasuustaa hooyo oo mar walba dhaqanka Soomaaliga mar walba ayideysa mar walba horumarinaysa dadka u sharxeyso Soomaali ajnabi ah haddayna joogno Soomaali gudaheeda ama haddayna joogno dalka banaankiisa hooyaday waa dadka farqu tiriska oo Soomaaliya maanta runtii aan oran karo aad u fahansan una dareensan qiimeeyana hidaha dhaqankeena waa Idris Bershiya telefishinka Universal Muqdisho